xabsigan waxaa ku jira labada burcad ee ugu waaweyn Dooska Wadeho. Labadani oo ah labada qof ee xabsiga mar waliba isku dagaala. Ilaalada waxa ay u adeegsadaan si loo kala fogeeyo biyo kulul oo labadani qof lagu kala ceeriyo, taa oo foodo meesha ka kicisay. Labadani waa madaxweynaha xabsiga Lee iyo sidoo kale midka amniga u qaabilsan oo iyagu ka wada shiraya sidii laga yeeli lahaa xabsiga nabadgelyadiisa. Hadda labadoodii mid ka mid ah Diho waxa isku diyaarinaya midka kale ee mas'uusha ku jira in uu dilo, balse arrintiisu waa ay fashilantay oo mid ka mid ah ilaaladii xabsiga ayaa soo farageliyay. Labada mas'uul ee xabsiga ugu sareysa ayaa waxa ay ka fekerayaan sidii labadaasi qof maslaxad loo kala dhexdhigi lahaa si amniga iyo kala dambeynta xabsiga ay u soo laaban lahayd. Madaxweynaha xabsigani waxaa muruga ku haysa dhibaatada ka sii taagan xabsiga uu madaxda u ka yahay, waxaana uu shaaca ka qaadayaa in marka hore labadani qof ee mar waliba isku dagaasho xabsiga in dhexdooda nabadgelyo la kala dhex dhigo, taasi oo noqon doonta mid xabsiga u wanaagsan. Mar kale waa kuwan labadii kooxood oo labadaba ay kala hogaaminayaan. Meeshani waa xabsiga, labaduba waxa ay hadda u diyaargaroobayaan in ay isdagaalaan. Labadii kooxood oo laba dhinac u kala saftay waxa ay ogsoon yihiin labada kooxba inay isdagaali doonaan labada hogaamiye. Labadoodii waxaa ku fiirsanaya dagaalka ilaaladii xabsiga kor ka waardiyeenaysay, Diho iyo sidoo kale ninka kale ee isagu ka soo horjeeda. Waxa ay dagaalkoodii uu noqday mid barbardhac ah maadaama awoodoodii ay tahay mid isla eg. Foodo ayaa ka kacday xabsigii si la mid ah hadda ayay soo farageliyeen ciidamadu. Mr. Lee oo amniga qaabilsan waxa uu kula talinayaa Diho in uu saaxiibkiisa u raaligeliyo arrintana la dejiyo. Lee Tae-seok ayaa hadda ku soo biiraya xabsiga, waa hogaamiyaha maafiyada magaalada, balse waxaa si aad ah arrintani uga walaacay maxaabiista iyagoo xabsiga ku jira. Waa kan isagoo si fiican u eegaya askariga ayuu ka dalbaday in uu ninkani uu soo salaamo. Waa mid ka mid ah raggii loo taal waayey, hal haraanti ayuu ku dhuftay, taa oo ku keentay in uu miir daboolmo. Madaxweynihii xabsiga ayaa ku soo booqday qolkii uu xabsiga kaga jiray, waxaana uu u sheegay dhibaatada xabsigani ka taagan iyo sida uu doonayo haddii uu wax ka qaban karo tuugadani. Waxaa loo keenay xoogaa waxyaabo qudraad ah oo isaga ay ugu talagaleen, waxaana uu ka aqbalay in uu xabsiga si nabadgelyo ah loogu dhex noolaan doono. Labadii kooxood waa kuwan iyagu mar waliba kor iska fiirsanaya, ay doonayaan mar waliba in ay rabshado ay ka kiciyaan xabsigaasi. Ninka hadda ku soo biiray hore waxa uu ahaa ciidanka booliska. Saaxiibtiisa oo la dhibaateyn rabay ayuu waxa uu ka dhiciyay mar 100 rag oo uu dhulka u dhigay, taa oo ay dowladdu ay mar waliba ay xasuusato. Ninkani hadda ah maafiyada ninka ugu sareeya ee magaaladiisa. Waxa ay ka sheekaysanayaan ninka hadda ku soo biiray xabsiga maalintii xigtay waxa uu isugu yeeray dhammaan maxaabiistii xabsiga ku jirtay. Labadii qof ee iyagu Diho iyo sidoo kale saaxiibkiis kale waxa uu sheegay in si nabadgelyo xabsigani loogu jiro ayna ogolaadaan in ay israa'iilgeliyaan. Taana waa uu ku guuleystay labadii saaxiibood, waxa uu kala dhex dhigay nabadgelyo iyo saaxiibtinimo. Waxaa ku farxay arrintaasi madaxii xabsiga, waxaana uu aad u soo dhaweeyay tallaabada uu qaaday ninkan xabsiga ku soo biiray. Waxaana maxaabiistii ay noqdeen kuwa si deganaan hawshoodii ku qabsada, xitaa mararka qaar heesa ka qaada meelaha ay kaga sugan yihiin xabsiga. Qol caadi ah ayaa la keenay, madaxii ugu sareeyay xabsiga waa la dalaacsiiyey, waxaana maxaabiistii uu sameeyey xaflad oo ugu sheegayo in uu uga mahad celinayo sida wanaagsan ay hadda ay sameynayaan. Gabdho u haysa ayaa loogu keenay xabsiga, balse Joo Bon-ho ayaa loo soo bedelay xabsigan, ninkii horena waa laga bedelay. Mr. Lee oo ammaanka xabsiga qaabilsanaa waxa uu uga sheekeynayaa xabsiga iyo nabadgelyadiisa iyo hadda sida ay tahay, balse sheekadiisa inta uu sii watay ninka cusub ee xabsiga lagu soo bedelay waxa uu la dhici waayey sida ay wax u socdaan, taa oo qasabtay in Mr. Lee si aad ah loo uleeyo, si aadna loo jirdilo. Waxay Lee ay ku qasabtay arrintaasi dabeecadiisa in ay wax ka bedesho, uu soo kaxeeyo ilaaladiisa, safna la soo geliyo dhammaan maxaabiistii iyagoo xabsiga ku jiray. Mid ka mid ah maxaabiista ayaa hurdada ku soo daahay,
kaa oo markii dambe garaac xoogana uu u geystay. Waxa ay dareemayaan in isbeddel uu jiro oo ku yimid Mr. Lee, balse maxaabiistan ayaa waxaa saaxiibkoodii uu u sheegayaa in ay Mr. Lee ay la shaqeeyaan maadaama xabsiga isbeddel weyn uu ku yimid. Waxaa waxyaabaha isbeddelay ka mid ahaa waqtigii ay qubaysan jireen oo xitaa lasoo koobay. Baaritaano lagu sameeyey qolalkoodii waxaa laga helay waxyaabo maandooriye ah sida sigaarka, taa oo dhibaato weyn ku keeni doonto maxaabiistani. Waxaa lagu amrayaa Mr. Lee in uu dabagalo 30 daqiiqo kaliya ayay qubaystaan. Xitaa waxa uu ninkani cusub ee xabsiga ku soo biiray uu yareeyey raashinkii garaamkii ay qaadan jireen. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo qolalka eegaya ayaa waxa uu arkay ninkii ugu dambeeyey ee xabsiga ku soo biiray oo hogaamiyaha maafiyada ahaa. Waxa uu soo xasuusinayaa sheekada ku saabsanayd wiilkiisa oo habeenada ka mid ah isku dayay gabdho uu la joogo mid ka mid ah in uu waxyaabo maanka dooriya ugu daro. Koran ayaa lagu magacaabaa wiilkiisa, balse waa ay ka diiday, taa oo markii dambe uu doonayay in si qasab ah uu ku siiyo. Balse hogaamiyihii maafiyada oo goobta isagoo ku sugnaa ayaa ka soo hormuuqday. Dhaladii uu khamriga uu ku cabay oo uu jabiyey ayuu isku dayay in uu la soo beegsado, balse taasi ma aysan suurtagelin. Waxa uu xakameyn waayey awooddii uu kula taagnaa miiska, waxaana ay keentay in uu ka soo dhaco dhaladiina isaga ay ku dhacdo, taa oo markii dambe soo dadejisay in la soo xiro ninkani. Waxa uu u sheegay taliyuhu in wiilka habeenkaasi dhintay uu yahay wiilkiisa, uuna uga argudi doono. Aad ayuu ugu qoslay, waana uu fajacay. Waxa uu shaaca ka qaaday in dhibaato weyn uu la kulmi doono. Garaac iyo jirdil xooggan ayaa loogu geystay ninkani isagoo hore u ahaa hogaamiyaha maafiyada magaalada, kaa oo xabsiga soo galay. Waa laga kaxeeyey taliyaha, si aadna waa loo jirdilay, garaac aad u xoogganna waa lagu horgaraacay. Waa kan taliyuhu waxa uu la hadlayaa Mr. Lee oo ay ka wada hadlayaan waxyaabaha xabsiga iyo sidoo kale sidii ninkani laga yeeli lahaa. Ninkan ayaa isaga waxa uu ku soo rogay xabsiga nabadgelyo, balse ninka cusub waxa uu sheegay in loo baahan yahay xabsiga sidii hore ee foodada in lagu soo celiyo. Mr. Lee oo dabeecadiisa waxa iska beddeshay ayaa mid ka mid ah maxaabiista si aad u garaacaya mar kale. Xabsiga waxaa timid gabadhii saaxiibka la ahayd ninka maafiyada ugu sareeyay, kaa oo u timid taliyaha. Waxa uu sheegayaa in xaaladda saaxiibkeedu uu yahay mid wanaagsan si la mid ah maxaabiista kale. Shaaxiye caabiisi ayaa waxaa loogu daray waxyaabo maanka dooriya, taa uu shirqool uu ka damacsan yahay taliyahani cusub. Waxaana taa ay keentay in moobilkiisa iyada oo qaawan uu sawiro uga qaado. Waa la soo kaxeeyey hogaamiyihii maafiyada, waxaana la tusaya saaxiibtiisa iyo sidoo kale waxyaabaha ku dhacaya. Balse nasiib wanaag waxa uusan awoodin in uu awooddiisa uu xakameeyo amaba uu la dagaalamo, maadaama gacmaha iyo lugaha ay ka xirnaayeen. Aad ayaana loo garaacay oo loo jirdilay. Mid ka mid ah raggii burcad ahaa ee xabsigani ku jirtay ayaa waxa uu heshiis uu kula dhex marayaa in uu xabsiga uu ku sii deyn doono, uuna doonaya in uu afduubto ninka maafiyada ugu sareeya xaaskiisa ama saaxiibtiisa. Fursad ayay ii tahay ayuu yidhi, maadaama anigaba hooyada bannaanka ay ku xanuunsanayso. Waa kan askarigan waxaa isku dayayaa in uu soo qabto, balse ninkii maafiyada ugu sareeyay oo shirqoolka wax ka ogaaday ayaa isaga waxa uu soo xirtay askarigii dharkiisa. Saaxiibadiisa ayuu ku soo laabtay, waxaana uu sheegay in uu doonayo inuu halkan isaga baxsado, sidaa darteedna ay sameeyaan rabshado. Balse waxa ay istuseen in ay jirto shirqool kale oo dhexdoodii ah, kaa oo ku saabsan mid ka mid ah asxaabtoodii in uu la heshiiyey taliyaha xabsigana laga sii daayey, kaa oo dibadda loo sii daayey in uu dhibaateeyo saaxiibtiisa. Hogaamiyihii maafiyada waxa uu suurta gashay in xabsiga uu ka baxsado. Mr. Lee ayaa arkay albaabkii weynaa isagoo kasii baxsanaya, balse aad ayuu ugu farxay markii uu arkay ninkan oo xabsiga kasii tegaya. Waxa uu u sharaxay sida ay waxay u dhaceen, balse taliyaha waxa uu u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ninkaasi in uu bannaanka u baxo, uuna ka warhayay arrintaani in ay dhici doonto. Balse maxaa dhacay intaasi kadib markii labadani qof ay ku sheekaysteen? Waxaa saf la geliyay dhammaan maxaabiistii oo iyagu lagu wargeliyay in saaxiibkoodii uu baxsaday. Balse markii uu soo baxay hogaamiyihii maafiyada waxa uu baadigoob u galay ninkii lala soo heshiiyey. Waxaana suurto gashay in dhowr qof oo ka mid ahaa asxaabtiisa uu garaaco.
waxay markii dambe ay isheleen ninkii saaxiibtiisii soo afduubtay. dagaal kadib mindi ayuu ku muday oo dhibaato ayuu u geystay. labadoodii dagaal ayaa dhex maray. saaxiibtiisa meel ayay uga soo dhuunteen waxaana isku dayeen inay ka baxsadaan. waxa uu sheegay in booliska ay ku wargeliso in isaga iyo ninkii kaleba ay xabsiga ay ka soo baxsadeen ay halkaasna ay ku sugan yihiin. waa kan mar kale dagaal ayaa dhex maraya labadoodii. waxay saaxiibtiisa isku dayeysaa in ciidanka ay u soo sheegto. mar kale ayaa ninkani dhaawac loo geystay, taa oo dhibaato weyna ku soo noqotay. markii ay isku barbardhaceen labada awoodood ee iyagu burcada ahaa ee maafiyada ahaa ee xabsiga ku jirtay, ayaa waxa uu uga sheekeeyey waxyaabaha ku qasbay in uu dibadda u soo baxo, ayna keentay in hooyadiisii ay xanuunsanayd ayna u baahnayd in uu gargaaro. balse labadoodii waxa ay noqdeen kuwo hadda soo heshiiyey. waxaa si lama filaan ah taliyihii xafiiskiisa ku soo galay warbaahinta iyagoo wax ka weydiinaya labadii wiil ee iyagu maafiyada ahaa ee xabsiga ka baxsatay. balse waxa uu ku amrayaa in ay xafiiska ay uga baxaan, waxaana Lee lagu amray in saxaafadda uu xafiiska uu ka bixiyo. wasiirka oo yaaban ayaa waxa uu amar uu ku bixiyey moobilkiisa taliyaha in la baaro iyo sidoo kale xafiiskiisa. balse moobilka marka la baaray waxaa laga helay ninkii maafiyada ugu sareeyey oo xaaskiisa ay qaawan tahay oo kal hore uu sawiray. labadii wiil ee iyagu hogaamiyaasha maafiyada ahaa xabsiga agtiisa ayay soo jiifteen iyaga oo dib isku soo dhiibay. waxaana dib loogu soo celiyey xabsigii, waxaana la dalaacsiiyey Mr. Lee, waxaana dib loo soo celiyey amnigii iyo kala dambeyntii maxaabiistii ku jirtay xabsiga. Mr. Lee waxa uu noqday ninka hadda ugu sareeya xabsiga.